بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد انت كدب waxaan marka hore idinkula dardaarmayaa nafteeda iyo naftiinaba ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa in aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno kagana baqno cabsidiisa dhabta ah kagana baqno meel kasta oo aynu joogno. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu naga rabaa in aynu ka baqno meel kasta oo aynu joogno, in aynu kaga baqno haddii aynu joogno goobteena shaqo, in aynu kaga baqno haddii aynu joogno guryaheena, in aynu kaga baqno haddii aynu marayno waddada. meel kasta oo aynu joogno in aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqno, waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka mu'miniinta ah wuxuu kula dardaarmay in ay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka baqaan kagana baqaan cabsidiisa dhabta ah. yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaatih. sidoo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo sheegay in aynu kaga baqno inta aynu awoodno oo karaankeena ah. fattaquu llaha ma statactum. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baqa inta aada awoodaan ujeeda. intaa kadib waxaan rabaa maanta in aan idinla wadaago in sha allahu tacaala waa labo kelimo ama labo eray, laba kelimo oo ay ku fududahay carabka, carabka in laga sheego labadaas kelimo way ku fududahay, fudeed bay ku tahay. labadaas kelimo way ku culus yihiin marka loo eego miisaanka qiyaamaha. xagga miisaanka way ku culus yihiin, xagga carabka in laga sheegana waa ay ku fudud yihiin labadan kelimo. nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laba kelimo waa ay ku fudud yihiin carabka in laga sheego, waa ay ku fudud yihiin, way ku culus yihiin miisaanka qiyaamaha, way ku culus yihiin culays. labadan kelimana waa labo kelimo allaha raxmaanka xaggiisa loogu jecel yahay weye. labadaas kelimo ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu jecel yahay. labadaas kelimo maxay yihiin marka? labadaas kelimo waxaa weeye subxaana allaahi wabixamdihi subxaana allaahi alcadiim. subxaana allah, ilaah baa xumaan iyo ceeb oo dhan ka nasahan oo ka hufan oo ka dahiran. wabixamdi iyo mahadintiisa in ilaah subxaana wa tacaala lagu mahdiyo weye. qofku hadduu ilaahi subxana wa tacaala uu hanuuniyey waa inuu ilahi subxana wa tacaala ku mahdiyaa. kelimada kale waxaa weeye subxaana allahi alcadiim. subxaana allah, ilaah baa xumaan iyo ceeb oo dhanba ka nasahan, ka hufan oo ka dahiran. alcadiim, alihi alcadiim weynaa mujida. marka qofka intuu dadka xaman lahaa
ama intuu dadka yani isku diri lahaa waxa u fiican una khayr badan una ajir badan miisaanka qiyaamahan u buuxinaysa inuu labadan kalimo uu badsado oo maanta oo dhan iskaga hadlo iska sheego baa ugu fiican uguna ajir badan meeshuu yani qofka meeshuu yani dadka ka xaman lahaa haddii uu dhaho subxaan allah wabixamdi subxaan allah alcadiim 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 yani mar kasta oo xoogaa yani jaanis helo markuu yani jaanis helo jaaniskiisa inuu yani kaga faa'iidaysto weeyaan subxaan allah wabixamdi subxaan allah alcadiim inuu adkaartaas kaga faa'iidaystaa ujeedaa marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa waxaan rabay labadaas kelimo in aan idinla wadaago insha allahu tacaala labadaas kelimona dadku badankooda waa ay garanayaan ama waa ay maqleen balse waxa way qofka isagoo xataa yani wixii uu garanayo waxaa fiican in la xasuusiyo waayo waa bini aadan uu ilaawi karaa waayo ma qaldame waa alle laakiin bini aadanka wuu qaldami karaa ujeeda qofka isagoo garanaya xataa wuxuu u baahan yahay in lasoo xasuusiyo marka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa video qofkii daawada ama dhegeysta waxaa weeye fadlan subscribe ha saaro channelka kan like-tan ha saaro asxaabtiisina ha ugu sheergareeyo baraha bulshada maxaan ku yidhaahdaa iimaha iyo whatsappka iyo messengerka iyo ha ugu sheergareeyo oo hana uu sheego yani inay yani subscribe saaraan si yani channelka u socdo qof kastana ajir ayuu ka helayaa waayo xadiiska nabiga wuxuu ahaa qofkii tusiya khayr wax khayr ah qofkii yani qof kale ku tusiya oo yani u sheega ama faafiya wuxuu la mid yahay qofkii sameeyey ama khayrka kan sheegay oo dadka soo gaarsiiyey ayuu la mid yahay kaas ajirkiisoo kale ayuu helayaa kii yani wacdiyey ama wacdiga soo jeediyey ajirka uu helayo oo kale ayuu kan kalena helayaa kii yani sii faafiya mujeedaa marka ciyaar maaha intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu